مدرسة القدس يا نورا لنا أبدا، أنت الشعاع الذي أحييت بالأمل. يا قدس يا منبع الإيمان يا شرفا، قد شعت في الناس كالأنوار في الظلم. أنت البساتين في أرواحنا نفحت. ما شاء الله والله درeenkayga la soo koobi karo habaryar baan ahay walaashay baa dhashay marka farxadaydu maanta aad iyo aad boqolkiiba boqol naabtigii baa qalinjibinay shishiyan ugu waalinaya safar baad soo gashay qalinjibinta naabtiga soo galay haa ay maxaad leedahay waxaan leeyahay dee intaay in ka badan gaari doontaa dareenkayga ma la soo koobi karo inamadaydii aan ku soo tabcay maasha allah maanta garabkayga taagan oo qur-aanka kariimka ay dhameeyey aad baan ugu faraxsanahay waxaan u mahadnaqayaa macalinka maamulaha aadan cabdi oo aad iyo aad noola dadaalay ardaydaas oo alif kariim baan meesha keenay waayahay halkan yaad fariin uga diraysaa maanta waxaan fariin uga dirayaa waalidiinta iyo macalinka macalin aadan ayaa la ilaahay abaalkaaga tanaha ka dhigo ilaahay khayr ku sida ubadka noogu soo barbaarisay insha allah macalin aad iyo aad u wacan xasan abubakar ninkan hawadahay maanta qalin jabinaya waxaan leeyahay cilmigaad baratay ilaahay ku anfaco wii dhalinyartaan ku joojina ka sii dadaalka xaa ka sii wadan ilaahay maanta waxaad ka qalin jabinaysaa madrasada alqudus farxad noocee ayay ku samaynaysaa maanta inay soo gaadhay qalin jabintaadii والله جرين سيدي سميني سا فرحت في عن يقل جميل في عن معلم كي يوم ما هذنا قيوم مع الآذن قد ما صنت هي معلمين تكلوا حساب برتي أبالكوا وحن بودا مقرنية مع المسلمين aad baan u dhownahay waa ninkan waa nin walaalkay weeyaan aad hal maryan aad iyo aad ugu dirayna halka waxaad leedahay halkaa ka sii wad halkaa ka sii wadaan leenahay soddonkana ugu yaacbo insha allah ay magacaygu waa Cabdulwahaab Axmed Xariir. waay cabdi waa maanta waxaan joognaa qalin jabinta madrasada alqudus maxaad ugu tala gashay inaad kaga qayb qaadato madashan qalin jabineed ee maanta Bismillaahi Raxmaani Raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. maanta waxaan ugu tala galay inaan halkan ka qaado gabay ku socda af carabi. gabayda af carabiga laga qaado buxuurtiisu way fara badan tahay. gabaygaas wuxuu ku socon doonaa baxrul basiid. macallimiinta ardayda ayaan ku amaanaya gabaygaas. marka hore waxaan soo dhaweynayay dadka ka soo qayb galay waxaan ku bilaabay أهلا بمن جاء من أهل الكرامة في يوم بدا مثل عيد زاهر الزهر. أهلا بوال وبالأعيان قد حضروا فالحفل أشرق والأوقات في حبري. الحمد لله في بدء وفي ختم رب تعالى على الإنعام والنعم. من شاء يرفع بالعلم الشريف له مقام مجد ويدنيه من القمم. خالق الأكوان في حكم صنعته أبدع الخلق من ماء ومن نسم. مدرسة القدس يا نورا لنا أبدا، أنت الشعاع الذي أحييت بالأمل. يا قدس يا منبع الإيمان يا شرفا، قد شعت في الناس كالأنوار في الظلم. أنت البساتين في أرواحنا نفحت علما وعرفان خير طيب كلمي. دار الفضيلة والإحسان ما برحت تهدي القلوب إلى الإيمان والقيم. أنيقو شيخنا أماني وحن كير قوي. فشيخنا آدم في العلم مجتهد قد سار بالنور مثل البدر في السحر. لم يأل جهدا لرفع العلم مجتهدا حتى سما ذكره في أفق كل فم. أنيقو أرضي دوتر دار مين وحنري يا حفظة الذكر يا من نور صدركم في الصبح يسطع كالأزهار في الأدم. waxaan leenahay way mahadsanidin marka koobaad ilaahay baan mahadnaqayaa alxamdulilaah marka labaadna waalidkayga marka saddexaadna macallimiintayda waxaasoo dhan soo bartay macallin waxaan leeyahay mahadsanid waalidkaygana farxad badan ayaan u qabaa adi laftarkaagu maxamed hooyada maxaad halkan ka leedahay hooyadii waa hooyadii ilaa intaa imika soo gaadhisay na soo karisay annaga oo in badan keligeed na soo karisay waxaan leeyahay hooyo macaan ilaahay ha ku daayo ilaahay jannada noo kulmiyaan way leeyahay marka labaadna macallimiinteeda marka koowaadna ilaahay ayaa mahadaas kale heerka ay soo gaarsiiyey intaa imika dunida joogay la soo gaarsiiyey barin aad iyo aad badan baan uga dirayaa waxaan leeyahay ilaahay abaalkiina jannaha ka dhigo sidoo kale macalinkeega marka koowaadna ilaahay soo dhawow ada magaca ku bilaabay mustafa maanta maxaad ka qalin jabinaysaa maasha allah halkan yaad fariin uga diraysaa maanta waxaan fariin uga dirayaa hooyaday oo boor ma joogto iyo ayeeydey iyo habaryooyinkii oo aad leedahay macallimiintaadi macallimiintaadi maxaad leedahay macallimiintii xilligan mahadsantii haye hambal soo dhawow ada magaca ku bilaabaya magacaygu waa Bukar Axmed maanta waxaad ka qalin jabinaysaa madrasada alqudus maxaad leedahay macallimiintaadi
waxaan leeyahay macalin abaalkiina waxaan ku guda ma garanaya abaalkiina waxaan ka dhigi doonaa ilaahay aa ka dhiga janno waxaan leeyahay mahadsanidin haye annaguna waxaan ku leenahay hambalyo hambalyo